marwooyin iyo mudanayaal dhammaan daawadayaasha sharafta leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada daawashada barnaamijkii diinta iyo nolosha barnaamij hore oo aan ku soo qaadnay waxaan kaga hadalnay mucjizooyinka qur-aanka ku jira waxaan isdul taagnay kuwa ku saabsan cilmi sayniska iyo halka uu gaadhay sida uu qur-aanku u sii tilmaamay iyaga oo aynan jirin laboratoiro amba shaybaadhyo wax soo saara iyo ururo amba mu'asasaad waaweyn oo arrimahaas ka shaqeeya wax lala yaaba ma aha waxa weeyaan waa kitaabkii ilaahay ee furnaa kownkan aan ku noolnahay qur-aankan kariimkina waa kitaabkii ilaahay ee aan akhriyaynay labaduna marnaba iskama hor yimaadeen mucjizooyinka qur-aanku intaa kuma eka lamana soo koobi karo waxaa ka mid a tusaalayaalka uu qur-aanku soo qaado ee ummadihii hore ku saabsanayd iyo qisooyinkaasi sida ay u taabanayaan nolol maalmeedka aan ku noolnahay wakhtigan imika barnaamijkeennan caawa waxaan isdul taagi doonaa aayad keliya oo aan ka dhexdheehani doono waaqica uu adduunku ku nool yahay run ahaantii marka uu qofku dhegaysanayo tafsiirka qur-aanka kariimka ah ee in badan uu laga akhriyo amba aan dhegaysano waxaa laga yaabaa inay ay u sarraysa amba ay doominayso amba ay u badan tahay xagga taariikhda ee qorayshi waxay tidhi nebigii wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam dagaalkan sidanuu u dhacay waxaad mooddaa arrintaasi inay hoos u dhigayso xidhiidhka uu la leeyahay qur-aanku waaqica amba nolol maalmeedka ay dadku ku jiraan barnaamijkan waxaa igu dhaliyey oo soo qaadistiisa igu beeray khudbad uu maalin dhoweyd sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir uu ka akhriyey khudbaddii ee ciidda run ahaantii wuxuu isdul taagay aayad keliya oo ku jirta fii suurati annaxli waa aayadda 112 ee uu ilaahay ku leeyahay subxaanahu wa tacaala wadaraba allahu maalan qaryatan kaanat aaminatan mطma'inatan ya'tiiha risquhaa ragadan min kuli makaan fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allahu libaasa aljuuci waalkhawfi bima kaanuu yasnacuun sadaqa allahu alcadiim waxay ahayd u dhowaasho uu sheekhu u dhowaaday hayjad duniyeedkan aan maanta aan ku jirno isaga oo ka dhaqaaqaya aayaddaas qur-aanka kariimka ah oo waayaha ay ku jirto iyo arrimaheegaa oo dhan isdul taagay in badan baa laga yaabaa inayna khudbaddaas si fiican u dhegaysan in badanna haddii ay dhegaysatay waxaa laga yaabaa iyadii oo af carabi ku baxday inuunan si fiican u qeexin marka waxaan jeclaaday inay bal daawadayaasha sharafta lihi ay khudbaddaas iyadii oo af soomaaliyeysan mar kale aan ku soo dhoweyno waxaa istiidiyooga iigu martiya sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir oo aan la qaadaa dhigi doono arintaas ahlan bik sheekh cabdiraxmaan waxaa jira qisas fara badan oo qur-aanka kariimkiihii uu inooga qisoodo ummadihii hore waa maxay xikmadda uu qur-aanka kariimkiihii ka leeyahay marka uu qisaskaas soo qaadayo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إلهي بان مهد الله سبحانه وتعالى marka hore marka labaadna waxaa mahadsan axmed iyo idaacadda dhammaanteed fursaddan ina siisay inaan mujtamaca diinta islaamka wixii aan ka fahnay aanu ka dhaadhicino intaas kadib waxa weeyaan su-aasha haddaan ka jawaabo qur-aanku muxuu uga sheekeeyaa qisaska dadkeennu inta ugu fara badan waxay u haystaan qisadaha khabaru kaana war hore u dhacay laakiin qur-aanku qisadana uu ka sheekeeyaa amhaalna uu ka sheekeeyaa qisaduhu wax weeyaan qasasku waa wixii soo dhacay ummadaha soo maray waxay dhahdaan ragga taariikhda baadho oo qur-aanka baadhaay dadku markay qur-aanka qisadiisa akhrinayaan qolo waxaa la wareersan yihiin qisadu xabkadda ku jirta yani quruxda iyo nidaamka ilaahay u dhigay sida suuratu yuusuf oo kale had iyo jeer adoo kun goor akhriya waxaad is leedahay yuusuf halkuu ku dhammaanaya nebi muuse markaad akhrinaysid marka suuratulqasas markay hooyadii tuurayso ilaa halkee buu gaari doonaa waxaad ka helaysaa sistemka iyo nidaamka qur-aanku usoo bandhigayo walidaalika dad caynkaasaa jiro intaan iyaga ku filan tahay laakiin qur-aanku wuxuu dhex dhigay qisadaha wax la dhahdo sunna sunnuhu waa maxay wax aan isbedelayn min nebi aadan ilaa qiyaamuhu dhacayo yacni maalan qofka qof dulma muxuu ku dhammaadaa qofka ummad dulma muxuu ku dhammaadaa gabagabadiisu waa maxay
qofka xaqa ku dhega muxuu ku dhammaadaa gabagabadiisu waa maxay waxaa dhahdaa sunan ullahi alatii laa tatabadel sunanka ilaahay aan isbedileen ayaa ku dhex jiro oo in lagala soo baxo qisad walba sunna sheegaysaa marka in sunnaha lagala soo baxo oo muxuu ilaahay uga jeeday qisadan subxaana wa tacaala la surtaago iyaa ka muhiimsan in qisada uun la surtaago sida dadka qaar ay dhahdaan aygii matalan ree asxaabilkaaf muu mudoobaa muu caddaa muu casaa ushii nebi muuse maxay ka samaysnayd ma waxay ahayd ul ka samaysan maaragtay ma waxaa laga soo gooyey geed quraca ma waxaa laga soo gooyey geed tiin maxaa laga soo gooyey dad kale waxay isku haystaan naaqadii nebi maaragtay saalix calayhi salaam say u ekayd maaragtay waxaa imse qof baa cabbi jirtay waxaaba dadku isku wareeriyaan oo qisadaha ku qoran waxaan aad u dhegaystaa mararka qaarkood khadar uu nool yahay ma noolo magaaladu dhex socdaayo ramadaankii buu yimaadaa dadku soo siyaartaa waa lafa male wax caynkaas oo xaqaa'iq aan ahayn oo inta badan yuhuud ka soo jeeda ayaa la isku wareeriyaa laakiin waxa muhiimkaa waxa weeyaan qisadan nebi muuse iyo khadar maxaa ku jiray waxbaa ku jira marka waxa ku jira ayaa qur-aanku inta badan uu isduldhigaa marka taasi waa qisaskii waxaan jeclaa inaan amhaasha ku imaado amhaasha waxaa ku jira oon ka soo qaadanana 3 arrimood buu qur-aanku dhex dhigay amhaasha arrinta koobaad waxa weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aayad qur-aan wuxuu ku yidhi uu kaga warramayo qur-aanka hadduu mithaal ahaan u soo dejin lahaa buur hadduu kusoo dul dejin lahaa buurtu way gogu ilahaydba cabsi ilahay daraaddeed laakiin bini aadamka waxba ma tarayso ilahay wuxuu yidhi subxaanahu watilka alamthaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun marka ilaahay subxaanahu wa tacaala mithaalada muxuu u keenaa muxuu u mahmaahaa muxuu ilaahay exaambalada inoogu soo dejiyaa muqaarabaadku inoo soo dhaweynayo inaan caqli yeer inaan fikirno marka atafkiir asaliim baa dhadaa fikradda nabad qabta ee bad qabta walidaalika waxaa jira iminka atafkiir alcashwaai wax dhado qof aan fikirin ma jiro insaanka iyo xayawanka maxay kala duwan yihin alinsaan kaain mufakir alxayawaanna waa kaain hayra mufakir insaanku waa wax jira oo fikira amba waa xayawaan mufakir xayawaan wuu yahay laakiin uu fikira wixii kale waa xayawaan ma fikira qariiza wada shaawadiisa xakunta idan laakiin fikrad walba sax ma aha fikradda saxdii wax weeyaan waa fikradda meel ka bilaamata dariiq marta meel ku dhammaata walidaalika ilahi wuxuu leeyay watilka alamthaalu nadribuhaa linnaasi lacallahum yatafakkaruun maaha fikraddii caadiga ahayd bini aadamka o dhan ay qabeen waa inay fikrad system leh si loo fikiraa jira waxa jira wax atafkiiru almanhaji amba wax atafkiiru almumanhaj bimacnaa waxay ka dhan tahay waxaad raacaysaa nidaam waxaad doonaysaa inaad gaadhid meesha ma gaadhi kartid adoo dariiqaa mara mahayn waata koobaad waa taa lacallahum yatafakkaruun ta kale ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala amsilada markuu soo sheegay waqtiguna wasan waxay wamaa yacqiluhaa ila alcaalimuun saa buu ilahi subxana wa tacaala amsilada qur'aanku uu ka warramayo waxaa fahmi kara un dadka scientifiga cilmiga le fikraddii maxay gaadhay tafkiirkii caalim bay ka dhigtay idan qur'aankan amsiladiisa waxaa fahmi kara un ninka caalimka ah nin walba ma fahmi karo arinta saddexaadina waxa ilahay baa ku sheegay ina allaha laa yastaxyii an yadriba mathala ma bacuudatan fama fawqaha faama aladiina aamanuu fayaclamuuna anahu alxaq waama aladiina kafaruu fayaquuluuna maada araada allahu bihada mathala kadalika yudilu allahu ilahay subxana wa tacala marka waxaan uga jeedaa wuxuu ilaahay jala jalaaluhu u sameeyey in dadku ay ku kala beydhaan xaq iyo baatilka waxaa lagu garanayaa amsilada waad aragtay iminka markaa iskoolka dhiganaysid ama cashar lagu dhigayo macalimiintu waxaa jira wax reegal qaacido iyo amhila reegalka inta la gaadhin xeerka inta la gaadhin waxaa lagu siin exaambelo matalan af carabiga haddaan soo qaadana af soomaaliguna uu leeyahay une waxaa lagu dhigayaa fal iyo fale ficil iyo faacil baa lagu dhigayaa inta aanan laguu sheegin qaacidadii u taalle xeerkii u yaalay horta waxaa laguu sheegay misaalkii jaa alwaladu wiilkii baa yimiday daraba zaydun zayd baa garaacay mithaalka marka laguu sheego ayaa lagu siinayaa maxay ka dhigan tahay faacil iyo ficilku marka waxa weyan waa saasoo kaleo ilahi wuxuu leeyahay waxaan u sameeyey amsiladan kuwa gaaladuna ay dhahdiin ilaahay muxuu waxaan uga jeedaa amsilo badanaa maahmaha badanaa muslimiintuna waxay odhanayaan fayaclamuuna anahu alxaqu min rabbihim ilaahay inuu waxaan xaq uga jeedo dadka u kala cadaynayo marka amsiladan saddexdaa shay baa muhiima inuu caqli dhiso inay culummadu ay kala fahmaan ay dadka u macnayn karaan iyo in ay ka faa'idaystaan waliba culummadu ragga scientifiga rag oo dhan iyo in xaqa iyo baatilka lagu kala saaro runtii waa arrin aad iyo aad u cajab badan oo haddii uu ilaahay rabo in arrimahan dadku inta badan ay isweydiiyaan in ay ujeedadiisu tahay dee waa la inoo sheegi lahaa kuma daaleen marka waxaan xasuustaa aayaddii ay lahaayeen yas'aluunaka cani ilahilla ilaahay ma orani subxaana wa tacaala waa junfiya fefriya bilow waa sidaa iyo amba waa rajab iyo shacbaan lama oran waxaa loo sheegay qul hiya mawaaqiitu linnaas wixii ay ujeedadeedu ahayd runtii waa qur'aankan kariimka oo waa arrinta cajabta badan le ee ku jira waxaan isweydiin karaa waxaan haynaa alamhaal amba tusaalayaalkan uu qur'aanka kariimkii soo qaaday fara badan maxaad u dooratay
mithaalkan uu ilaahay hayjada uu kaga waramay ood mid kale usoo qaadi weydood kaa u dooratay bidaat? waxaa igu wacnaa inaan doorto horta habeenkii beritoole ciidu ahayd waxaan ka fikiray maxaad ka hadashaa. waxaa iga qaadatay muddo aada u fara badan. waxaa ii hor imatay inaan ka hadlo 3 mawduuc. mawduuca koowaad hor yimid inaan ciidda ka sheekeeyo. waxaa idhi dadku ciidda aad bay u yaqaanaan, waa dad islaama, dad gaala ah maaha. culumadii oo dhan ramadaanka oo dhan baa laga soo sheekeynayay. axkaamta ciidda aad baa looga hadlay, fidri baa la bixin, waa laga wada sheekeeyey. marka wax waqti kaaga riday ma jirto maanta. taas baa isdhi. arrin labaad baa ay hor imatay. arrinta labaad ay hor imatay waxayd inaan ka sheekeeyo oo maanta ninka la idhaahdo baabka oo diinta kiristanka ugu sarreeya waraaqad buu u soo diray culimmada Jabuuti. wuxuu yidhi waxaan doonaynaa inaan labadeena diinood ka wada shaqayno cadaaladda iyo nabadda inaan rabnaa. marka waxay nafteeda ku dhalatay ma ka hadashaa cadaaladda iyo nabadda. marka waa 2 mawduuc oo waaweyn oo kutub culus laga qoray. iyadana waxaa idhi uma baahno khudbad yar oo ciida oo 5 iyo 10 midha fikraddii oo dhan kuma tabin karaysid. marka sidaa u ahaa waan seexday aniga oonan weli wax goyn. labadii habeenimo seexday. salaadii subax markaan soo kaxay tukaday waxa igu dhashay anoo salaadii ku dhex jira aayada quraanka wadaraba Allahu mathalan qaryatan. aayada markay igu dhalatay aad baan u farxay. aayadii waxa ku jira waxaan rabay oo dhan oon maaragtay maanta dunida soo egtahay sida inay u ekaato ahayd sida oo dhan baa aayadii iga soo cadaatay. markaas baan galay maxaan ku rahdaa meeshaydii maktabadaydii 3 kitaab oo tafsiir aan soo qaatay waan ka akhriyay anoo degdegaya. kadibna waxaan saan u tagay salaadii ciid si aan maarta khudbada aan u akhriyo. bal waxaan jeclaan lahayn sheekh Cabdiraxmaan aayadan uu ilaahay leeyahay daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aaminatan mutma'inna iyo sida aad bal ugala soo dhex baxday adduunku sida uu ku jiriyo arrimihiisa. marka bal inaad waxoogaa tafaasiil aan nooga bixisid. horta meesha waxaa ku jirta waqafaad aad u fara badan. waxaan ku sameeyey anigu waqtigu ii saamixi waayey 4 maxaan dhahdaa istaag. waxaan isla taagay aayadda inteeda ugu horeysa. ilaahay uu yiri qaryatan aaminatan mutma'inatan ya'tiiha rizquha ragadan min kulli makaan. taasi waxaan ka dhignay waqfa. waa alqarya. marka qaryadan soo qaadan. qaryatii koobaad taas. waa arrinta koobaad weeyaan. arrinta labaad ee soo qaadanay waxay ahayd qaryadaas u eg tahay. sifaad bay leedahay qaryeejada ilaahay ka sheekeeyay. waxyaalo u gaara ayay leedahay. macaalim lagu gartay leedahay. shaanlooyo waxa dhacday leedahay. tilmaamay leedahay. marka waa tilmaamihii heejada ay lahayd baan soo qaatay. joogsigaas afraadna ama saddexaadna waxay ahayd in dadka bini aadamkii marka uu ilaahay nicmada siiyo fakafarat biancumi illahi baan soo qaatay. inay dadkii heejada deganaa ay ka gaaloobeen nicmadihii ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala oo aad u fara badan inay ka gaaloobeen. waa tii saddexaad. tii afraad sideen ula dhaqanaa nicmadaha ilaahay baa ku dhex jirta. wuxuu ilaahay ku siiyay ula dhaqmaysaa. arrinta ugu dambaysa waxay ahayd qofku marka uu xumeeyo wixii ilaahay nicmad siiyey inuu si fiican ula dhaqmo maxaa ka dhalanaya. natiijadii ka dhalanaysa waa maxay? faadaaqaha Allahu libaas aljuuci waalkhawf. afartaa isla taag ayaan ku samaynay. waxaan si gaaban doonayay inaanu ag joogsano qur'aanka kariimka marka uu ka waramayo alqarya amba heejad amba tuulo maxay ka dhigan tahay? dadkeenu se u yaqaanaan tuulo waa magaalo aad u yar oo la iswada yaqaano oo dadka degan macruufiin ay isku yihiin. nidaamkii u noolyihiina la wada yaqaano. sheekh bay leeyihiin la dhahdo sheekhul qarya amba cumda la dhahdaa waddanada carabta qaarkood. annaguna sheekh village baan odhanaa. marka ninkaasi maamulaha magaaladaas iyo 4 qof ee degan islaamaha odayga ubadka iskoolka masjidka kaniisadda waa la iswada yaqaanaa. marka qaryad dadku saa u yaqaanaan laakiin quraanku saa uma dhigin qaryada. quraanku qaryada wuxuu u dhigay markaad akhrisatid مثلا sheekh dhada Imaaduddin Khaliil waa écrivain u dhashay wadanka Ciraaq. waa nin ragga adduunyada maanta taariikhda ugu yaqaan ayuu ku jira. waana nin maaragtay Paul Kennedy ninka dhada Mareykanka oo kale yuu la mid yahay marka adduunka carabta la eego islaamka. quraankana si gaar u akhriyaa. ninkaas wuxuu qoray alqarya almafhum alxadaari lilquraan alkariim. yani qaryadu waa mafhuumka xadaariga quraanka bixinayo sida ummad u degan tahay. marka anu markaan qaryada akhrinay uma aan akhrin magaalo yar oo dikhila amba carta ah amba cali sabiixa amba se maaragtay haddaan Soomaaliland tagno Booramo kala amba maaragtay magaalo Boona saas uma aan akhrin. waxaan u akhriyay alqarya markaan akhrinay magaalo inta ka weyn. maxay waxaan u akhriyay sidoo ilaahay subhanahu wa ta'ala wa tilka alqura ahlaknahum
lamaa dalamuu ilahay wuxuu yihi xadaaradaha buu jiraa watilka alqura wuxuu ka sheekaynayaa reer nuux wuxuu ka sheekaynayaa reer maaratay hawd wuxuu ka sheekaynaya jamiicu lumam buu ka sheekanaya wuxuu yihi watilka alqura magaalooyinka iyo xadaaradaha maxaan sameynay ahlaknaahum waan baabi'inay goormaad baabi'isay ilaahu lamaa dalamuu markay dulmeen markay ka baxeen dariiqii baan dulminay wakam min qaryatin batarat maxayd maciishataha imise waxaa jirtay xadaaradood oo dhaaftay oo intay cuntadii iyo xoolihii ka dabireen xadgudbay qur-aanku markaas waxa weeyaan alqarya waa maxay mafhuumkeegu waxa weeyaan qaryadu waa meel la degan yahay meeshaa degan waxaa degan dad bini aadana dadkaa bini aadamka waxay leeyihin system ay u nool yihiin dhaqan bay leeyihiin diin bay leeyihiin madax bay leeyihiin dad la hogaamiyey leeyihiin ciidan bay leeyihiin waa system marka waa nidaam xadaariya waa habnololeed qaryadu runtii waxaad moodaa sheekh cabdiraxmaan noosiyooga amba fikradda uu qur-aanku ka bixinayo hayjadda ee sidaa u ballaaran ee ilbaxnimo iyo sivilisa wax badan xambaarsan waxay u eg tahay amba ay la mid tahay halkii ay kusoo biyo shubatay waktigan imika aan joogno oo iyagana loo bixiyey dee waa village adduunyadii oo dhan oo hayjad noqotay marka waxaad kusoo xidha laga yaabaa mafhuumkaas iyaad ka imika adduunka laga haysta inuu yahay hayjad keliya marka alqarya alkawniya bala dhadaa adduunka maanta amba alqaryatu shaamil dhadaa qaryadii wax walba ayaa leen waxaan kuu sheegay marka qaryad laga dhaqaaqayo heejad laga dhaqaaqayo heejadu maxay tahay heejadu waxa weeyaan waa dad iswada yaqaana waa dad wixii saaka dhacay bacda saacad isku wada sheegaya adduunka maanta muxuu yahay qaryadii qaryadan caduydu waa sidii imika markuu hadlayo Washington ninka maanta maamula markuu ka hadlayo halka ma ka daawanaa bacdaha yani markuu hadlayo afkiisa kala qaadan faruutiisa baad arkaysaa oo kala qaadmaysa wax weeyaan kubdimooda kubada la ciyaarayo ninkii kubada saa u leeday baad daawanaysaa wax weeyaan adduunkii wuxuu noqday sababta itisaalaadkan warbaahintan degdega ah muwaasalaadkan degdega ah waxay noqotay heejad bay noqotay markaasi saa daraadeed nabigeena calayhi salaatu wasalaam adduunka isagoo cabiraya laana risaalada rasuulku waxay dhahdaan culimadu markay ka hadlayaan kadalika jacalnaakum ummatan wasata markay ka hadlayaan alwasatiyya markay ka hadlayaan حتى في التاريخ أمة الإسلام هو محي وأمة وسط وأمة الدحاضة محي الدحاضة كنتها مركي بني آدمكم مرحلة المراهقة والطفولة أي سود ميين أي مرحلة الرشد والرجولة أي جلس وبني آدمك عبد بيسوها هيان ويسو كريان مركو بني آدمكم وينادي إلهي النبي صلى الله عليه وسلم مركا النبي وحى الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين للقرية الكونية الله صلى الله عليه وسلم الدون كمنقون يهجد قراتي موندياليساسيون وهرتيد يونبي صباح عليه الصلاة والسلام marka nabigeenu waa nabigii moodiyalisation message la adabteynaya la socda marka wadaraba Allahu mathalan qaryatan marka leeyahay in lagu macneeyo maaha Maka ambas in lagu macneeyo maaha Qudus or Shaleem ambas in lagu macneeyo maaha magaaladii uu Nabi Ibrahim galay in lagu macneeyo maaha quraanku waxa weeyaan waqtiga iyo zamanka macneeya wuxuuna la shaqo galaya waqti wal iyo meel walba markaan ayada diyaarinay waxaan isha ku hayay macnahan isha ku hayay waxaan doonaynay hayjadaas aad ka warantay ee macnaha ballaaran leh tilmaamaha ay lahayd maxay yihiin ee aayaddu ay ka waramayso u fiirso quraanku waxaad tiraahid markaad furaysid waa mucjizo quraanku maalinta hore waxaan macnaynaa in yaro taataabasha oo dhinaca scientific haddaad qaadatid dhinaca bulshadana quraanku waa mucjizo haddaad qaadatid dhinaca xeerasha iyo qaanuun dejinta waa mucjizo haddaad qaadatid dhinaca nafsiga iyo psikolojiga waa mucjizo dhinacii quraanka laga qaataba waa dawaqaysaa tan haddaan soo qaadano maalan waa aayadda 110 ee suurat an-nahl waa aaya waaxida waxay soo koobtay dhammaan culumada dhaqaalaha iyo culumada bulshadu waxa ay ka yiraahdaan horumarka waliba waxa dhacdo développement durable waxa dhacdo at-tanmiya al-mustadama maaratay horumarka raagaya ee la waarin karayo sidee loo waarin karaa wixii lagu waarinayay aayadda ay ku jirtaa maxaa ugu horeeya ilaahay wuxuu qaryada markuu ka hadlayay كانت وحي أحيد آمينة مدقن مد أمن كنول ما هو الأمن إذا إن أمن يسوي دين ويان بريجي هور أمن مركا أي معنينا يان علومة مارة أمن كشقيان وحورن جرن انعدام الخوف وقفك أو أين عبسهين لكن ما أين جرن علومة هور إن علاقة كده حيث بين الخوف والجوع عبسده iyo gaajada inay cilaaq ka dhaxayso ma ayna garaneen ama waxa loo yaqaan bayna al-faqr wal-irhab madama macna kala dhigno baahida faqriga baahida iyo terrorism irhabka argagixisanimada inay cilaaq ka dhaxayso lama garaneen laakiin imika waa la ogaaday markii la ogaaday waxa la furay ayada quraanka ayaa la furay ayada quraanka la gaaray ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala awwal buu ku bilaabay kaanat aaminatan waxa ahayd qaryadaasi mid xasiloon مد أمني ما هو الأمن إذن أمني القرآن كشاغيو ومحي والأمن شامل وأمني ديلي تران
amniga culimadu waxay ku tilmaamaan waxaa jira inuu qofka bini aadamka loo securiteeyo loo amniyeeyo arrimaha soo socda kow waa inuu qofku helo al-amnu al-ghidaa'i wax dhaqo al-amnu al-ghidaa'i waa maxay qofku inuu cuntadiisa uu ka calaacala maaha bari ma casheen sahan daba ma cuni maxaad cuni doontaa maaha waxa rabtaa amni weli inuu ka hayn wixii uu cunayay wuxuu cunayay wata kuwad weeyaan arinta labaad ee loo baahan waxa dhado waxana dhinac kale waxay u dhigaan culimadu al-amnu al-maciishna u dhigaan qidaa'ina waa dhada carabiga waa cuntada qidaagu maciishuna waa nololeedkii baa ka yara ballaaran qidaa'iga leena qidaa'iga wax la cuno buu sheegaya maciishigu acabkii buu sheegaya maciishigu wuxuu sheegaya seexadkii buu sheegaya wax badan oo maciisha ku jira arinta labaad al-amnu al-ijtimaa'i waa inuu qofku helo waa inuu bulshada uu la nool yahay ammaan ku dhaxaysto waa inuuna ka cabsoonayn reerka jaarkiisu inay soo weerarayno waa inuuna ka cabsoonayn in si dulmiya dawladdu ayna u xidhi karayn waa inuuna ka cabsoonayn in amni ijtimaaci u haysto bulsho ahaan waa inuu amni haysto waa arrinta labaad weeye arrinta saddexaad waa maxay waa al-amnu siyaasi waa inuu jiro amni politika waa inuu jiro oo qofka bini aadamkii uu ku noolaado siyaasad ahaan si ammaana ra'yigiisa uu sheegi karo ra'yiga dad kale uu dhageysan karo waxaas waa in la iswadaarsan karo waa amni siyaasi amniga afraad waa al-amnu nafsi naf ahaan waa inuu amni ahaado amni nafsigu waa maxay waa inuu isagu uu naftiisa ammaan geliyo naftiisuna ay ammaan geliso waa inuuna naftiisa qasbin la haddaan qur-aanka gallo ma dhammayn karano dee waxaa oo dhan sheekh cabdiraxmaan arrimahana aad sheegtay oo dhan ma wax markii aad falsafooyinka iminka jirahaad akhriday uun kugu soo dhashay ood qur-aanka kusoo dhex daraysid macnihiisa mise waxaa jira axaadiis iyo aayado arrimaha tilmaamaya la heli karaa aayado aan tirakoobi karayn iyo qur-aan iyo xadiisaan rasuulku aan tirakoobi karayn waxbaan ka sheegi doonaa markaan kuu soo dhammeeyo xabad amniun baa i hadhay iminka al-amnu al-caa'ili baa i hadhay qoys ahaan waa inuu ammaan haysto isaga islaantiisu waa inay isnabadgeliyaan inuu dagaal ka dhexeeya maaha sida imka dad ay ku fikiraan naagtuna waa inay naagnimo u dirto ninkuna waa inuu ninnimo u dirro anu waxaan haysaa wax dagaal siraac laakiin waa in la helo amni caa'iliya sheekh dadkeena waa kii hore yidhi nin iyo islaantii colna maaha nabadna maaha waa mid malaha looltan soo jiray in badan baa laga yaabaa maya kulley horta waxbay taasi cabiraysaa laakiin waxa weeyaan amniga aan uga jeednay waa al-amnu al-caa'ili wa anu waxaan sharxayaa diin waa amnigii nebi maxamed iyo caasho ka dhexeeyey caasho iyo nebi maxamed caasho waxay gaadhay darajad hadday nebiga arki weydo ay noolaan weydo nebiguna wuxuu gaadhay darajad hadduu caasho waayo uu noolaan kari waayo nebigu wuxuu ahaa kii ka sheekin jiray khadiija had jeer ka warramaya taariikhdeeda markaasaa baan u baahnaa al-amnu al-caa'ili waa in shantaa shay iyaa ku jirtaa aaminatantii aaminan bay ku jirtaa nebiguna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man buu ruuxa asbaxa waa beriista muxuu waa beriisanayaa mucaafan fii badani jidhkiisa oo nabad qaba meelna ay ku xanuunsan al-amnu sixi weeyaan waa al-amnu sixi weeyaan walidaalika amnigaasi wuxuu galay amni ijtimaaciga marka lasii ballaadhiyo meel kale aan kaga sheegayaa berigii hore waxaa la oran jiray caafimaadku waa maxaysna waa incidaamu lmarad qofka uuna bukin laakiin taa waa laga tagay imika taa caafimaad ma haydi o m s t way imatay waxay samaysay wax la yaqaano eribixin maa huwa caafimaadku muxuu yahay bay qortay waxay waafaqday xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tiri waxa weeyaan kama dhigno saa ku qoran kama dhigna caafimaadku qofka uunan bukin waa o m s t waa ururkii sare caafimaadka adduunyada kama dhigno qofka uunan bukin ee waxay ka dhigan tahay qofka oo haysta caafimaad kaamil ah jir ahaan fisig ahaan bulsho ahaan soo waxaad garatay maaha mucaafan fii badanihi xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam mucaafan fii badanihi jirkiisu caafimaad qabo aaminan fii sarbihi meesha uu jiifana ku nabad qaba ilaa waa qaryadii kaamilkan joogan adduunyo dhan maanta wax weeyaan wax halkan ka dhacay maraykanka taasirinaysaa waxa maraykanka ka dhaca amba jabaan ka dhacana jabuuti taasirinaya adduunka dhan heejad buu noqday marka aaminan fii sirbihi cindahu quutu yawmihi amni ghidaa'iga markaas wuxuu cunayeen haysta saddexdaa shay ninka haysta nabigu muxuu yidhi fakaannamaa xiisat lahu dunya bixadaafiiriha adduunkii oo dhan oo la sido iyaa gacanta lagaga soo riday wax ka maqan ma jiro marka tilmaamtii koobaad waxa waa aaminatan idan ilaahay wuxuu yidhi kaanat aaminatan marka amnigaa la helo oo sidaa u dhan dadkii waxay helayaan wax dhada xasilooni ilahay wuxuu yidhi aaminatan mutma'inatan uu ku xigsiiyey sheekh cabdiraxmaan arrintan cajabta le ee intaanad mudma'ina u gelin aayaddan waxaa ku qoran oo horreysiisay aaminatan oo risqigii bay dambaysiisay nacam aayad kale oo ilaahay uu ku laha subxaanahu watacaala falyacbuduu rabba hada albeyt alladii acamahum min juuc waamanahum min khawf marka kolna waxaa horeynaya khawfkii marna arrimihii kalkale waxa weeyaan waxaa jirta wax ay u bixiyeen sheekha la yidhaahdo cimaadiin iyo culamo kaleba alcilaaqa aljadaliya
بين الخوف والأمن وتفهمت ما العلاقة جحنا هاي وريلاسيون ديالكتيك بعد فرنسيسكا وحديد إمارة هاد يجر مركب من لهلا مثل كلا دعيا مثل كلا هلا هدي خوف لهلو أمني درة إيمانيس waxay imanaysaa gaajo haddii gaajo la helo amni darro ay imanaysaa waa wax maartay direct ma automatic ma badhaysaa mubaasharatan markaa way dhacaysaa walidaalka kii horreeyay kala kanaya marka waxaan joognay aaminatan tiiba doonaysay inaad ku soo xidhid mudmainatan macno weyn baa ku jira wax weyn qofka bini aadamka markuu amni helo uu security inta aan sheegno dhan uu helo maxaa u dhalanaya waxa xasilaya qofkaas markuu xasilaato maxay waa mutmainatan bu ilaahay subhanahu wa ta'ala itmiinaan itmiinaanka waxa weeyaan anu markaan u fiirsado amba quraanka akhridid waxa weeyaan waa natiijatu al-amni amnigi marka la helay ee dadkii ay ammaan ku noolaadeen qaryadan caalamiga ah oo nin walba ninka kale nabadgeliyay amba qaryada yarba nin walba uu ninka kale nabadgeliyay amba wadan nin walba uu ninka kale nabadgeliyay ee waxa la wada helay nin waliba uu xasilaya wuxuu jeclaanayaa meesha uu degan yahay uu isa siin baadada itmiinaanku waa taa mutmainatan buu ilaahay subhanahu wa ta'ala qaryada sifaadkeega waxa kamid ah amni baa jira amniga muxuu dhaliyay xasilooni oo itmiinaan xasiloonidaas waxa ku macnayn karnaa saddex shay man ka soo qaadanaa kuma dheeraana xasiloonida waxa weeyaan waa xasilooni horta ruuxi ah ruuxiyan iyo akhlaaqiyan ayuu qofku xasilaya markuu qofku ruuxiyan iyo akhlaaqiyan xasilo waxa loo bixiyay assalaamu ma'a daat qofku oo isagu nabad qaba nabadgelyo kula noolaa naftiisa jirkiisa kula noolaa alxamdulilah wallahi si fiican baad u nooshahay raali iska raali taabu helaya suma waxa imanaya itmiinaan baa imanaya xasilooni waxa imanaya ijtimaaci ah oo dadkii bini aadamka oo dhan baa isla xasilaya mujtamac wuxuu noqonayaa mutabaadil ah mutacaawin ah mutakaafil ah oo mutajaanis ah iska wada helayo is wada jecel oo is wada xusaya ayuu noqonayaa walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacdin baa imanaysa barbarka kale garabka ku qabanayaan la isma riixayo waxbaa la isku tarayaa la iskama tuurayo nolosha waa la isla qabanaya waa arrin cajiiba la iskama tuurayo waa la isla qabanayaadaasi waa arrin cajiiba ijtimaaciyan arrinta saddexaad ee imanaysa itmiinaankaas muxuu keenayaa itmiinaan iqtisaadi uu keenayaa xasilooniyo nin walibaba wuxuu ku kalsoonanayaa lacagtiisii wuxuu kalsoonanayaa meeshuu deganaa wuxuu kalsoonanayaa wixii inuu maartay maalgelin sameeyo ayuu kalsoonanayaa marka taasaan doonaya inaad uga sii gudubtid aayadda inta ku sii xigta ya'tiha rizquha ragadan min kulli makaantan waxa weeyaan aayadda qur-aankii waa mucjizo waxaa mucjiso tahay marka labadaa la helo amni marka la helo ee xasiloonina la helo maxaa imanaya ilaa waxaan ognahay annaku waaqic ahaan maanta nin walba wuxuu ogyahay lacagta uu daba ordaa risiqa waa la daba ordaa risiqu kuma daba ordo laakiin aayadda qur-aanka waxay sheegaysaa inuu risiqu imanayo cajiib halkaa risiqa imanaya halkaa sifaadkaa leh amnina leh xasilooni leh ya'tiiha siduu iman sheekh waxaan maqalay quraanka waxaan maqalay reer bani israa'iil inaan loo soo dejin jiray almanna wasalwa ya inta hadda ka sugo markaan quraanka akhrino maryam calayha salaam iyadna inuu iyadii oo xanuunsanaysa amba halkaa oo yani zakariya ku yiri anna laki hada qalat huwa min indillah inta ka sugo ma arkin risqi iska yimaada waxaad ka dhigantahay waxaad ogtahay ninka maalqabeenku waa jabaan waa fuli ninka xoolaha leh waa fuli limaada huwa jabaan wuxuu ful u yahay wuxuu la cabsoonayaa lacagtu meelaha manaadiqda almutawatira meelaha maartay qarqaraya ee dagaal ka jiraan ee argagax ku jira lacag ma lageyn karaa lama geyn karo lama maalgashanayo ragga maartay mustasmiriinta maalgashanaya ma geeyaan meesha lacag waxay lacag geeyaan meesha degan meesha istiqraar leh iminka مثلا dawladaha mustaqirka Japan dawladaha maartay Dubai oo kale maxaa lacagta loo geysanaya limaada waxa loo geysanaya way degantahay kuleeyeen lacagtaasi lacag bay keenaysaa marka lacagtii taalay maartay aqsa dunya adduunka meesha ugu dambaysa meesha degan bay tagaysaa lacagta marka imanaysa qofkii bini aadanka marka lacagtii markay badatay wadanka ka shaqeyso maxaa imanaya waxa imanaya dadkii bini aadanka noloshoodu ay sarakacdo ilaahay wuxuu leeyahay marka la helo amni iyo itmiinaan marka la helo ya'tiiha heejada waxa imanaya rizquha rizqigeegi ilaahay u qadaray uu imanaya halku uga imanaya meesha cajiibka taa min kulli makan meel walo adduunyada jirta ayuu rizqa uga imanaya marka annagu waxaan isla tagaynaa waa saddex shay awalan ya'tiiha waana fahno rizqi meesha amnigu ma daba ordayaan waxay sameeyaan amni istiqraar bay sameeyaan itmiinaan bay sameeyeen way dageen xoolihii baa ku soo yaacay meel kasta ka imanaya wata
arinta labaad risquha baa risqigiiba imanaya risqi waa maxay risqi bikulli anwaaci baa imanaya caafimaadkii baa imanaya horumarkii baa imanaya risqu quraanka maal maaha khaladka badan badi galana waa taa iminka matalan maalin dhowto miskiinka khubadana aad kala isla dutaagay oo mimma razaqnaahum yunfiqun waxa ay ma jiro qof bini aadan oo wax bixin kareen laakiin dadka qaar baa haysan ninka lacag leena wax bixiyo dad baa jira xikmada bixiya laga leeyahay dadka caafimaadka bixi baa laga leeyahay qofka xoogga bixi baa laga leeyahay qofka cilmiga bixi baa laga leeyahay nin walba wuxuu hayaa bixi oo mimma marka mujtamacuna waxba bixinaya qof aan waxay ma jiro laakiin risqi waan u fahnay waan dayiqnay lacag baan ka dhignay xoolaan ka dhignay ma ahan xoolo risqo marka waa wax kasta oo wax walba ballaaran dhakhtarada ugu dambeeya imanaya culumada adduunka ugu cilmi badan ayaa ku iman marka waxa ay oo meesha isku iman marka waxa jira wax la yiraahdo maanta example ku soo qaadanaya waxa jira maarta adceeda iyo dhulka waxa ka dhaxay waxa ad-dardu wal jadbu qaanuun ad-dardi wal jadb iyo jadbi waxa dhulku adceedu wuxuu doonaa inuu ka ordo adceeduna way soo jeedataa labadaas sunnaha ilaahay uu sameeyay buu dhulkuna adceeda ku duura adceeduna ay socotaa midna uu doonaa inuu ka baxsado midna inuu soo jiito waa miisaanka ilaahay adduunyada ku dajiyay subhanahu wa ta'ala miisaanka baa nolosha bulshada ka dhaxeeya waxa jira manaadiq daarida adduunka waxa jira meel dadka eriyata culumada eriyata dhakhtarada eriyata injineerada eriyata lacagta eriyata wuxuu ku baadan yahay caalamkan tiermontka iyo waa kan hijratul al-uqul waa waxyaalaha ugu waaweyn wadamadan soo koraya ay ka ashtakoodaan iyo waxa jira waxaado maartay quwan maartay manaadiq jaadiba wax soo jiidanaysa marka al-manaadiq al-jaadiba waa maxay waxa jirta amni iyo istiqraar marka yaatiya rizqu harqadan waxa kale oo inaan iloonaanayn ragadan kalimatu ragadan waa kalmad muhiima maaha rizq gaaja maaha waa rizq ballaaran oo raqad qof ku raaxaysanayo ay imanaya hawo ka imanayana min kulli makaan adduunka oo dhan marka waqafaadkaaga ku jira ayada quraanka inta yari waxa weey runtii waxay noo cadeynaysaa arrin aad looga warramo oo markan la leeyahay maalgashashada iyo waxyaalihii ku saabsanaa ayay iyaduna ay taabanaysaa waxaan doonaynay Sheekh Cabdiraxmaan kulli waqtigu uu nahayaa inaanu imano joogsigii saddexaad ee aad ku tilmaamtay in uu yahay sida loola fangalaya amba looga faa'iideysanayo barwaaqooyinka uu Ilaahay nasiyo aayaddu maxay ka tilmaamtay arrinta bini aadanku waxa weeyaan waa laba qolo waxa bay fahmi waxa soo nicmada amni bay fahmi ammaanka iyo security-ga oo dhan macnaha weyn leh maarata dhinaca nafsiga dhinaca siyaasadda dhinaca dhaqaalaha dhinaca bulshada dhinaca horumar wax kale baa waxay fahmi waxa uu dhalinayo marka waxay oranayaan sidaan u ilaalinaa imika waxa jira wax la yiraahdo fikrad la yiraahdo kayfa nuhaafid sidaan u xafidnaa al-muktasabaat wixii aan helay in la siiyo sidaan u xafidnaa loo ilaaliyaa waa su'aal labaad baa jirta waxa jirta kayfa nastasmir sidaan uga muddo dhalinaa waxaan hayno waa su'aal labaad su'aasha saddexaad waxa kayfa nuwadif sidaan u shaqaysiinaa iyo jirta waa saddex su'aalood saddexdaaba khubara ka shaqeysa khabiir kale ka duwan yahay qaar waxay ka shaqeeyaan himayatul muktasabaat si loo ilaalin waxa la hayo amniga istiqraarka tumaanada lacagta badan sidaan u ilaalinaa arrin cajiib oo weyn weey ma sahlan runtii qolana waxay ka shaqeeyaan sidaan u maalgelinaa kayfa nastasmir waxaan ina soo lagu daayimaan ilaa wixii biir waayo oo naaqsan waqti marka waa ina soo isticmaalna qolna waxay leeyihiin seen u iibgeynaa kayfa nusawiq arinta aan hayno seen u iibgeynaa marka taasi waa maxay waa nicmadii oo lagu shukriyo waa taasi ilaahay la in shakartum la azidannakum hadii saddex qolo la helo saddex khubro hadii la helo waxa imanay la azidannakum wala ziyadin marka ziyadaas waa maxay waa istidaamatul tanmiya وطنميدي ودي قابل للجلني لوارنتي شيخ معنا جديد وواوين بعد هالكا كسو موجينيسا anagu de ma hadnaqam leeyahay inuu qof kasta halkiisa alxamdulillah yiraahdo wixii qalba oo faxalnimadiisu ay siisana inuu ku deeqo mooyane waxaad siinaysaa arrimaha dimension iyo abcaad aad iyo aad u waaweyn oo khubara loo sameeyo oo muasasado laga baaraandigo oo etiid laga sameeyo arrimo waaweyn runtii shukrigu waa anwaac moogtahay ma hadnaqo waxa ugu khafiifsan alxamdulillah وطعم وضحينه الحمد لله وحل وضحيه شكرك وحا ugu sareeya in aad wixii aan sheegay aad sameeyay midna markuu ilaahay nabi daawud ka sheekanay boqortooyadii isaga nabi suleymaan la siiyay boqortooy weyn baad ma ilaahay wuxuu ka yiri subhanahu wa ta'ala kuma hadnaqa ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر وحوا امتحان الله إن أدوك ورنا حكم عفريت حكم
quraanjada xakumo oon maaragtay aan idhahdo maali laa ara alhudhud aan idhahdo ya muxuu hududkii u arki lahay uu yimaado hududkii isagoo duulaya uu keeno war hada min fadli rabbi laakin limaada ashkuru am akfur shukriga maaha inuu idhahdo intuu seexdo aqal alxamdulilah idhahdo maaha waa inuu ilaaliyo so waxaan garanay maaha marka shukrigu waa macnaha buu leeyahay in shakartum la aziidannakum marka ziyaadada maanta maxaa laga sheekeeyaa anu macnaha ujeeda waa kaa maanta caalamka wuxuu ka sheekay dhacdo atanmiya almustadaama in developmentka diraab laga dhigo waa taa waa ziyaadada la aziidannakum waa ziyaadinayna qola saa wala dhaqmaysaa qolo kalena waxay qaadanaysaa aayadda dambe wala in kafartum ina cadaabii la shadiid ilaahay muxuu yihi fakafarat biancumi illaah lama oran binicmati illaahi lama oran nicmadii ilahay bay ka gawdo lama oran biancumi illah nicmooyinkii ilahay nicmooyinka waa maxay waa saddex yaan sheegnay waa nicmadii koobaad ee amniga ahayd tii labaad ee itminaanka ahayd xasiloonida tii saddexaad ahayd yatiiha risquhaa raqadan min kulli makaan wixii oo dhan haddaad kasii balaarisna sheekh cabdiraxmaan waa odhan lahayn waa in tacuduu nicmatallaahi la tuxsuha ma koobi karaysin aayaddu ilahay ku lahaa markay ka gaaloobeen ilahay wuxuu haddaad ka gaaloodaan cadaabteedu way daran tahay dad fara badan waxay ku macnayaan cadaabta ilahi subxana watacaala aakhiro ma ahan aakhiro cadaabta ilaahay halka dambaan ugu imanana waa adduunka iyo aakhiraba walidaalika islaamku waxaa dhahdaa waa diinu alcaajili waalaajil waxa dhow iyo waxa fogba uu ka warramaya marka macnahani waxa weeyaan wuxuu ina barayaa kayfa natacaamal nicmadan inaan saddexdii shay la sameeyo si loo ilaalin karo akiid waa arrintii saddexaad weeyaan ta afraad waxay ahayd rasiltaagii amba natiijadii ka dhalanaysay sida ay dadku kolba ula fangalaan nicmooyinka uu ilaahay siiyo subxaanahu wa tacaala marka arrintaa afraad baanu doonayna iyaad iyadna noo soo koobtid ballaaranta runtii waxaad moodaa mid kasta waxay u baahan tahay barnaamij gaara inaan kusoo qaadno laakiin adoo raali bal noo soo ururi tii u dambaysay joogsiga macno yar oo dhow hankuu dhiibo sheekh axmedow macnaha waxa weeyaan inta hore qur-aanka fa kamaad arkayn labada aayadoo dambena fa baad ka aratay fakafarat biancumi illaah faadaaqaha allah yaad ka aratay halka hore fa'aha ma jirin fa'du af carabiga maxay tahay af carabiga waxaa jira saddex kelmadood aan soo koobana way badan tahay saddex kelmadood oo la dhahdo xuruufta cadfiga ee wax raaca la dhahdo wow fa iyo thumma wowgu wuxuu faa'iideeyaa maca matalan waxaa yidhi waxaa yimiday axmed wa cabduraxmaan way wada yimaadeen ma qoratay maca bay kii sii horreeyey kii dambeeyey waxaa ma faa'iideynaysa iyadu way wala yimaadeen fa'du waxaa la dhahdaa waxay faa'iideysaa litacqiib maxay kala tahay jaa axmed baa yimiday fa cabduraxmaan cabdiraxmaan ka daba yimiday daba socdeen sumaduna waa waqti weyn baa u dhexeeya oo waxa weeyaan jaa axmed ثم عبد الرحمن كدب عبد الرحمن بدي مالين دبدي بعيش دبدي هذا فأذني معناه فأذني سوف يرسل وحويان قريدي أمان كهيستي إطمئنان كهيستي دقني حوله كبضنايان فكفرت ويكجهلودي بأنعم الله نعمة إلهي كعيارين ودوري وين كتقرب فلان ما هذا فأكلا مركب ويمان ساينا لقوم السوق لما أنا وقتي إن كسرت وقتي إلهي وقتين وكالدنيا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فهذا وين أفهمه وقتها نغير باتري أرنت الله بعد سوق هذا نحوين مركا أي دتك كجالوبان نعمتي إلهي سبحانه وتعالى محا إيمانيا لبشي بايمانيس وحا إيمانيا بقس الخوف يا وحا إيمانيا الجوع جاجا إيمانيا باهي بايمانيس لبدا الشيء هرت محيين ما هو الخوف وما هو الجوع جاجدنا ما حيتها وين لبدا معلنا هذانا قرآن كوحوري لباس بوغري هو بيسيتان لباس الجوع والخوف أريد صدحات أذاق بوي أوددسي مركا إنا أنت بإسلام تاغنا ولا مرما وسوخو كوبينا هذان كبلون أذاق أوددسي ذوق ومحي قفك واحد عن علماته شيخ شعراوي وكله وحو كددمينيا ميل ول او نفتيسا مدخو كددمينيا نفتو كددمينيا لوغو كددمينيا guriga markuu hidu kala dhaminaya ciyaalkiisu ka daawanaya noloshiisu ka arkaya muxuu ka arkaya waa dhadhan buuxa marka halkaa waa dhawq uu dhadhaminaya meel wuu joogaba gaajo uu dhadhaminaya quraanku ma oran ilaahay subxaanahu wa ta'ala fa albasahum wuxuu u gelinaya ma oran waa la dhadhaminaya macnaha dhaqma saa u faanaa wata koobad weeyaan oo marka runtii waa arrin waa qoto dheer weeyaan idan gaajadii ma aha mid la taaban karo qofkii عربك كو ايغي كرايو لكن وا دارين او ميل كسيبا او كداريماyo meel kasto ka dareemay nolosha dhan madaahirteeda marka sa u soo gashay dareenkiiba ilaa gaaray ilaa uu dhadhamo oo kale wax la xisiyo la taaban karo yani waa tacbiir quraani oo raaqi ah oo aad u sareeyaan arinta labaad wuxuu waa hu bimaana libaas waxa ka dhantahay meesha uu qofku tagaba uu la joogaa
gaajadii baa la joogtaa magaalo wal markuu taga qaryadiisa dhexdiisa gaajaa la joogtaa gaajadii waxaa u dheer cabsi iyo baq ayaa la jooga had iyo jeer marimaad noolaan su-aasha waa taalla markaa libaas ba noqotay dharkeenu may naga hadhaan yacni waa mulaasamatu linsaani maca way la nooshahay sida dharku ula nool yihiin iyo qofku ula nool yahay arrintaana waa arrinta gaajada iyo hawraadka iyo maarata waxa arrinta saddexaad ee muhiimkii wax weeyaan ee juuc iyo qofka intaan macnin maxaa keenay inay dadku gaajoodaan maxaana keenay inay dadku cabaqaan ilaahay anagu waxaan odhanaa ilaahay baa keenay ilaahay baa matalan tiyarmoodkana gaajo iyo baqis u keenay ilaahay baa subxana watacaala matalan jaban iyo dowladahana horumar u keenay waa qalad weeyaan ilaahay baan dulmaynaa subxana watacaala ilaahay wuxuu leeyahay bimaa kaanuu yasnacuun waxa iyaku samaynayeen ba'du waa sababiya kooska iyakaa lahaa weeye ba'da facray waa sababiya yasnacuuna iyakaaba samaynayaba waxa iyaku samaynayeen baa u keentay khawfkan iyo gaajadan baqistan iyo gaajadan labadaaba waxa iyaku samaynayeen iyaa keentay buu ilaahay subxaana wa tacala marka waxaa lasku khaldayaa sheekh cabdiraxmaan dadku wixii ay samaynayeen wixii ka dhalanayey iyo waxaa ka dhasho oo la dhigo idaarka ilaahay iyo subxaana wa tacaala qadarkiisii iyo cilmigiisii iyo waxyaalihii uu ilaahay qadaray labadana kol iyo lasdhexgelinaya mawduuca qadarka mawduuc u baahana maalinta laga sheekeeyo lianna anaku qadarka mafaahiim khaladan ka haysanaa dad baa maaragtay qadarkaba diidan dadna wax walba qadar bay ka dhigeen waan ku soo qaadanaa isaga kudhigiisa marka waxa weeyaan mawduucaasa intaa baan kaga soo bixinay faadaaqaha allah inaan fahno libaas aljuuci walkhawf waana natiijada ka dhalanaysa marka laga gaalooba nicmadii ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay dadku ay samaynayeen marka juucu faqriga iyo juuxa waxaa dhadaa faqriga ka weyn laakiin qur-aanku juucu bada isticmaalaa waa natiijadii faqriga qofku markuu baahdo uu gaajoona marka ilaahay faqrigii ma sheegina gaajadii buu sheegay juucii buu sheegay subxaana wa tacaala ilaahay jala jalaalu markaa juucan iyo khawfka waana kii odhanay waxaa ka dhexeeya cilaaqa jadaliya kulamaa idaa wujida aljuuc wujida alkhawf waa wax dialectic ah lagama meeraysan karayo haddii gaajo la helo baqis baa la helay dadka waxay xadayaan cumar bin khataab waqtigiisii mar bay majaac dhacday gaajaa dhacday nin sare oo lacag lahaa ayay shaqaalihiisii xadeen xoolihiis bay ka xadeen cumar buu u keenay wuxuu ka yihi cumar raggani waxay iga xadeen xoolahaygii maxkamadii taag cumar markuu baadhay arrintii wuxuu ogaaday inay gaajo u xadeen wuxuu yihi hadday beritoola xadaan adaa gacanta kaa goyn iyo kamaa gacanta lagama goynayo asalka inaad tuug gacanta laga gooy helma adaa gacanta kaa goyn buu keenay limaada xaqoogi maa siin buuri marka waxa xadista u keenay waxbaa u keenay waxbaa ka keenay marka la baabi'iyo dadkiina saabay noqonayaan wallahu tacaala runtii waa arrimo aada iyo aad u ballaaran oo aanan fadhi keliya amba mawduuc keliya aanan kusoo qaadi karayn adduunka iminkana waan aragnaa wararka waan la wada soconnaa meel kasti oo dagaalo iyo colaadi ay ka jiraan waxaa ku habsata gaajo iyo faqri ayaa ku habsada iyo cudurro ayaa ugu biira aada iyo aad u fara badan ilaahay ay naga badbaadiyo runtii intaas ayaan kusoo koobi lahaa laakiin waxaan jeclaani lahaa inaan halkaa bal sheekh cabdiraxmaan aan ku weydiiyo adduunka maanta waxaa soo tilmaamtay libaas aljuuci walkhawf labadiina aada iyo aad u haystaan oo adduunka iminka wax cabsida u weyni waa argagixisa wixii ku saabsanayd arrintaa khatarta ay leedahay waxa weeyaan waxaa laga yaabaa si toosa amba aan toos ahayn ayaa loogu soo xidhaa islaamkanan maanta ka waramayna ee naxariis iyo wanaag iyo fiicnida ise aan hayno ayaa lagu soo xidhaa waxaan jeclaan lahayn bal inaan fadhiga soo socdo haddii ilaahay nafta inoo daayo aan inaga iyo labadeenna iyo daawadayaashu ay ballanteenu noqoto bal inaan ka warano argagixisadan maanta adduunkii haysata ee libaasal khawfidan ah iyo islaamku waxa uu ka qabo inaan kusoo qaadno daawadayaal gebagabadii waxaad ii ogolaatiin inaan magaciina ku salaamo sheekh cabdiraxmaan sulaymaan bashiir oo sida fiican u aqbalay dacwadii aan u fidiyey inooguna soo diyaariyey intaan dib u kulmayno waxaan igaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu